waxaan doonayaa in aan idinla wadaago dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha biyaha sare joogga laga cabo. waxaa si maalinlaha u cabnaa biyaha. ilaahay wuxuu biyaha ka dhigay nolosha noolaha oo idin. adiguna waxaa laga yaabaa adigoo fududaysanayo oo socda amaba taagan inaad biyaha sare joogga ka qorqoriso. haddaba ma og tahay dhibaatooyinka caafimaad ee laga dhaxlo biyaha sare joogga laga cabo? sidoo kale axaadiista nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay dadka ku booriyeen in biyaha lagu cabo fadhiga. sidoo kale waxay naga reebeen amaba noogu digeen in aan biyaha ka cabno sare joogga. haddaba intaan u gudagelin dhibaatooyinka caafimaad ee laga dhaxlo biyaha sare joogga laga cabo, waxaan si gaara kaga codsanayaa in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale muuqaalka laagsan page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. sidoo kale xagga hoose kabac qaar ka mid ah asxaabtaada oo aad la jeceshahay in muuqaalkani ka faa'iidaystaan. mahadsan. ka fogow inaad biyaha ku cabto ama aad ku qorqoriso sare joogga. waxay keenaan dhibaatooyin caafimaad oo waxay dhibaateeyaan ama ay dhaawacaan habdhiska dheefshiidka. maxaa yeelay qofka markuu biyaha ka cabayo ama uu ka cabo sare joogga, biyaha iyagoo si xooli ah u socdo waxay ku dhacayaan xoogka ama gidaarada caloosha. waxaa qalqal ku imaan karo dheecaanada jirka oo waxaa dhaca amaba ka dhasha in sumow uu dhaco amaba xanuun ay ku yimaado caloosha. sidaa daraaddeeda waxaa wanaagsan in qofka uu biyaha ku cabo fadhiga si aysan qalqal ku imaanin ama qalqal ay ugu dhicin habdhiska ama habsamo socodka dheefshiidka. sidoo kale biyaha sare joogga laga cabo waxay keenaan dhibaatooyinka ku dhaca amaba cudurrada ku dhaca kala-goosyada jirka sida arthritis-ka. maxaa yeelay qofka haddii uu sare joogga biyaha ka cabo waxay keenaan in ay qalqal ku yimaadaan dheecaanada ama electrolyte-ka jirka. qadar aad u badan oo dheecaan ah ayaa waxay ku aruurayaan kala-goosyada jirka, taasoo oo keenta ama keeni karto qalqal dheecaanada jirka ama electrolyte. haddii uu kala-goosyada ay ku aruuraan qadar aad u badan oo biyaha ama dheecaan ah, waxaa dhici kara xanuunada ku dhaca kala-goosyada sida arthritis-ka oo kale. sidoo kale haddii uu qofka biyaha ka cabo sare joogga, fitamiinada iyo nafaqada kale muhiimka ah ma gaarayaan beerka iyo habdhiska dheefshiidka. sidoo kale haddii uu qofka biyaha sare joogga oo ka cabo, biyahaas si xooli ah ama si xooggan ayay waxay ku gaarayaan gudaha jirka oo waxay dhibaato u geysan karaan sanbabada iyo shaqada wadnaha. maxaa yeelay levelka oxygen-ka jirka ayaa caqalad ku noqon karaan biyaha xooggan ee jirka galayo. haddii aan u gudugalo qodobka ugu dambeeyo, biyaha sare joogga laga cabo waxay dhibaateeyaan amaba ay dhaawacaan keliyaha. waxaa la ogaaday in keliyuhu ay si fiican u shaandheeyaan dareeraha marka aad fadhisid ama marka uu qofka fadhiyo. haddii aad biyaha sare joogga ka cabto, biyaha waxay si xooggan u gaarayaan gudaha jirka iyagoo aan si wacan loo sifeynin amaba loo shaandheynin. taasi waxay keenaysaa in wasaqdu ay gaaraan ama ay ku aruurto kaadiheysta, ugu dambeyn ay dhaawac soo gaaraan kelyaha. fadlan ha iloobin inaad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale muuqaalka laagsan page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. sidoo kale xagga hoose meeshin ku dheh qaar ka mid ah asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. intaas ayaan ugu soo gabagabaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.